wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland oo ka duulaysa qorshaha waxqabadka xukuumadda wadajir iyo waxqabad ayaa wafdi u kuurgalaya xaaladda deegaanadaasi u dirtay deegaano ka tirsan gobollada Togdheer iyo Saaxil. wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa mar walba waxa ka go'an inay kor u qaaddo wada shaqaynta laamaha dawladda, maamulka deegaanada iyo bulshada si looga wada faa'iideysto kheyraadka dalka looguna shaqeeyo qaranka Soomaaliland. ayaa waxa hogaaminaya agaasimaha waaxda macdanta mudane Cumar Cabdullaahi. sidoo kale waxa ku wehelinaya la taliyayaasha arrimaha macdanta ee wasaaradda mudane Madar Iimaan iyo waliba sidoo kale mudane Jaamac Cabdiraxmaan iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda. intii uu socday safarka wafdigu waxay kulan la qaateen gudoomiyaha degmada Fiqi Ayuub ee gobolka Togdheer iyo maamulka tuulada Ceel Baxay oo hoos timaada gobolka Saaxil, kuwaasi oo muhiimad weyn u leh arrimaha macdanta ee goboladaasi. odayaasha isuduwaha taliyayaasha nala socday iyo la taliyayaasha wasaaradda dhammaan ujeedada safarka iyagu wuxuu ahaa waxa ka nimi wasaaraddii tamarta iyo macdanta oo ay soo direen wasiirkii wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo agaasimihii guud si aan u nimaadno gobolka waliba degmada Fiqi Ayuub inagu eegayna xaaladda deegaanka iyo waxyaabaha u qabsoomay ee shirkaduhu qabteen, waxyaabihii iyo sida looga faa'iideystay waxyaabihii hore la qabtay, caqabadaha iyo sidoo kale caqabadaha jira inaan eegno. waxa kale oo iyaduna muhiim ah inaan wareysano odayaasha iyo dadweynaha si aan iyagana talooyinkooda u qaadno haddii Ilaahay yiraahdo. safarka iyagani kuma ekeyn xaggana haddana waxaan wuxuu ku ekaa xitaa Saaxil oo marka dambe sii mari doono haddii Ilaahay yiraahdo. waqtiga kooban waxa weeye waan soo koobay ujeedada guudna waxa weeye xog ururin inaynu is wareysano maadaama markii isugu keen dambeysay waqti fog ahayd inaynu markaas wareysano waxyaabihii nagu soo kordhay haddii caqabada jiraan caqabadaha iska wareysano. intaasaan ku soo koobaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa soo dhaweynta qiimaha badan ee uu inoo sameeyey gudoomiyaha degmada Cusmaan. intaa kadib haddii aan u guda galo safarka yagan iyo waxa uu daaranaa. safarka yagan wuxuu ahaa safar xog ururineed oo aan ku soo maraynay degmada Fiqi Ayuub, Ceel Baxay, degmada Fiqi Ayuub, Ceel Baxay iyo Il Carmo iyo sidoo kale inaanu iyagana soo kormeerno kaamamkii macdanta ee shirkadaha saddexda shirkadood ee labana shaqaynayaan midna ay fadhido. safarkayguna wuxuu daaranaa xog ururin iyo koorgalka xaaladda deegaanka. waxa ugu muhiimsanaa oo aanu u soconay wuxuu ahaa bal inaanu ogaano baahiyaha ka jira deegaanka, baahiyaha ka jira deegaanka ka jira iyo wixii loo qabtay. kulamadaasi waxaa diiradda lagu saarayay sidii wasaaradda iyo bulshada deegaanku ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta iyo inay ka faa'iideystaan kheyraadka dabiiciga dalka sida loo xaqiijiyo dhammaan shaqooyinka la xidhiidha macdanta loona fuliyo hab qarannimo ah. mas-uuliyiinta iyo bulshada deegaanka ayaa waxay garwaaqsadeen muhiimadda ay u leedahay wada shaqaynta wasaaradda iyo bulshada si loo xaqiijiyo kheyraadka macdanta loona maareeyo si waafaqsan danta guud loona dhiirigeliyo horumarka iyo shaqo abuurka deegaanka. aad baan idinka mahad celinayaa socdaalkiina qiimaha leh ee aad noogu timaadeen degmada Fiqi Ayuub. anigu waa gudoomiyihii Fiqi Ayuub. waxaanu idin soo dhaweynaynaa aadna waanu u baahnay inaana noogu timaadaan ama soo gaadhaan idinkoo iyadoo aanay markii u horreysay ahayne ilaa sidii macdanta looga bilaabay degmada 2019 bishii afraad ay wasaaraddu ku soo noqnoqonaysay degmada iyo goobaha macdanta ka socoto iyo kaamamka. si qalbi furan baan idin soo dhaweynaynaa. soo dhawaada degmadiina ku soo dhawaada, dadkiina ku soo dhawaada, deegaankiina ku soo dhawaada. ilaahay baa mahad leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin oo nabadgelyo iyo caafimaad soo keenay. waxaan ka warbixinayaa maraaxigii ay soo martay macdan qodistan ka socota degmada Fiqi Ayuub. waxaa la dhagax dhigay 1919 bishii afraad ayaa la dhagax dhigay macdanta
labadii kun iyo 19 bishii afraad ilaa xilligaas iyo maanta inta ka dhaxaysa way shaqaynaysay. way jiraan shirkadaha qaar hakad galay ama awood waay inay sii shaqeeyaan sidii shirkadii la oran jiray Africa ay bedeshay shirkadii Al-Rahma iyaduna way fadhidaa Al-Khayraad iyo shirkadda Leo Kulan markii horena Bikrom la oran jiray way shaqeynayaan si fiican ay u shaqeynayaan oo waxyaalihii iyo qorshaha ay ku tala galeen hawshooda way wadaan oo way socotaa. aad iyo aad ayaa wax ballaaran oo aad u qiimo badan oo sumcad iyo u leh haddii la yiraahdo iyo karaamaba u leh Somaliland ayaa ka socda degmada ka socda. waan ugu mahad celinaynaa xukuumadda, waan uga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo haddii la yiraahdo macdanta ama shidaal ha noqdo ay dalkooda ay ka fulinayaan ay ka wadaan. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. Cabdiraxmaan British, warbaahinta qaranka Somaliland, deegaanka Fiqi Ayuub.